Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabay kusoo dhawaada maanta cashar kale oo xiisihiisa wato. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo ku saabsan qoyskaaga. Kadibna su'aalo yar oo fudud ayaan ka jawaabi doonaa. Warqad oo gabar ay qortay oo qoyskayga ay kaga hadlayso ayaan akhrin doonaa. Waatana warqaddii about my family qoyskayga. Waxay tiri let me tell you wax kaaga sheego about my family qoyskayga. I live waxaan la noolahay with my mom hooyaday, my dad aabahay ayaan la noolahay sidoo kale, and my big sister walaashay iga weyn ayaan la noolahay. We live in California waxaan ku noolnahay California. My mom's name hooyaday magaceeda is Carmen waa Carmen. She is Mexican waxay u dhalatay Mexico and she speaks English and Spanish waxay ku hadashaa English iyo Spanish. She is a Spanish teacher waa macalin Spanish ah. She is short way gaaban tahay and slim waana caato way dhuwan tahay. She has got waxay leedahay long brown hair tima dhaadheer oo qaxwi ama bunni ah and brown eyes iyo indho bunni ah. My dad's name aabahay magaciisa is David waa David. He is American waa American. He is tall wuu dheer yahay and a little fat xoogaa wuu cayilan yahay. He has got wuxuu qabaa short brown hair tima gaaban oo bunni ah and blue eyes iyo indho kuushoodu ay buluug tahay. He works wuxuu ka shaqeeyaa in a bank bangi ayuu ka shaqeeyaa. My sister walaashay Shania gabadha la dhaho is 14 sano ayay jirtaa and she loves waxay jeceshahay listening to music inay dhegeysato musica. She listens to music waxay dhegeysataa muusikada all the time xilligeeda oo dhan. She has got waxay leedahay long brown hair tima dhaadheer oo bunni ah and green eyes iyo indho kuushoodu ay tahay cagaar like me aniga oo kale. I have got waxaan qabaa long hair tima dhaadheer too sidoo kale. We have got waxaan leenahay a pet dog nooc carbisan oo aan anaga dhaqano. Pet waxaa la dhahaa xayawaanada baleeshaga iyo farxadda dadka gaalada ay usoo qaataan dadka islaamka ma isticmaalaan. We have got waxaan leenahay a pet dog nooc carbisan Brandy la dhaho. He has wuxuu qabaa black and he is black and white wuxuu isugu dhex jiraa madow iyo cadaan labadaas karar ayuu isugu dhex jiraa and very friendly aad ayuu dadka ula saaxiibaa ama dadku saaxiib leeyahay. Soo sheekadan waxaa loo baahan yahay in aad si fiican isaga fiiriso si fiican aad u dhegeysato. Waxaa inoogu xiga sheekadan su'aalo yar oo ku saabsan sheekadan oo qiimeynaya in aad sheekadani fahantay iyo in aadan fahmin. Macnihii jumladaha ku jiro ayaa lagu soo qaadanayaa waxaa lagu gelinayaa meelo bannaan. Waxaa la rabaa macluumaadkii aad soo akhrisatay ee soo dhageysatay adoo isticmaalaya in aad buuxiso su'aalahaas. Su'aalo kalena way noo dhiman yihiin balse kuwan fudud ayaan ka hormarinaynaa. Marka ku cesho casharkani ku celi si fiican isaga ilaali. Su'aalaha waa su'aalo aad u fudud ku saabsan casharkan. Marka waxaa loo baahan yahay casharka inaad dhegeysato. Bal aan aragno su'aalaha. Haye I live waxaan la noolahay with my mom hooyaday, my dad aabahay and my dash sister walaashaydii iga yar mise iga weyn buuxi. Number 2 my mom hooyaday is dash teacher waa macalin noocee ah. Number 3 she has got waxay leedahay dash brown hair tim bunni ah and dash eyes. My dad aabahay has got dash brown hair. We have got a dog. We have got dash dog noocee ayaan qabnaa. Marka ku noqo buuxi commentiga ku soo qora. Qofka ugu bato abaalmarin ayaan siin doonaa insha Allah. Qofka ugu horeeya ee share gareeyo haddana su'aalaha ugu badan ka jawaab insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.